kadib ciise wuxuu kaxeeyey yooxana iyo yacquub oo butros la jiro oo wuxuu aaday xagga buurta si uu u tukado oo intuu isagu tukanayay ayaa waxaa isbedelay wejigiisa iyo muuqaalkiisa oo dharkiisuna waxay noqdeen caddaan ifaya markiiba laba nin ayaa isaga la hadlaysay oo iyagu waxay ahaayeen muuse iyo eliyaas oo ka dhex muuqday ammaanta jannada adigu waxaad buuxin doontaa ujeeddada ilaah waxaad ku dhiman doontaa yeruusaalem markay ka tegayeen ayuu butros ciise ku yidhi sayidow siday u fiicneed inaan halkan joogno waxaannu samayn 3 teendho mid adiga ah intii uu butros hadlayay ayaa waxaa timid daruur oo daruurtii ayaa iyaga hadhaysay xertiina way baqeen oo cod ayaa daruurta ka dhex hadlay kaasoo lahaa kan waa wiilkayga kaan doortay maqla isaga